السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو وناكسن داوديال كسو دوادا برامجka Soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idin soo gudbino waxaynu diiradda ku saarnaa xaaladaha xasaasiga ah ee dalka caawa inta badan barnaamijka waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa Soomaaliya oo ku dhawaaqday dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Kenya ra'iisul wasaare Roble oo galabta si rasmi ah u furay in ciidamada badbaado qaran ay isaga baxaan gudaha magaalada Muqdisho wasiirkii maaliyadda dalka Qatar oo xabsiga loo taxaabay iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo Mareykanka iyo ururada barwaaqo sooranka ah oo ku hanjabay in Soomaaliya ay cawaaqib xumo la kulmi doonto haddii aan degdeg wax looga qaban xaaladaha ismariwaaga ah ee dalka ka jira iyo waliba madaxweyne Farmaajo oo qorshe gaar ah u dejiyay gabi ahaanba haddii ay ka baxaan ciidamada badbaado qaran magaalada caasimadda ah ee Muqdisho aynu ku horeynay waxaa soo baxaysa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xildhibaano ka soo jeeda magaalada Muqdisho iyaguna taageersanaa ciidamadii badbaado qaran ee dhawaanahan ka dagaalamayay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho xarumo dhufeysyo ana ka sameystay in ay si rasmi ah ooda uga qaadeen in ay guryahooda iyo waliba xeryahooda dib ugu laabtaan ciidamadaas oo ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada badbaado qaran ayaa bilaabay inay ka baxaan qaybo ka mid ah degmooyinka Hodan Howlwadaag Cabdicasiis Kaaraan waxaana ay ku sugnaayeen muddo ka badan 2 toddobaad halkaasi oo ay aag dagaal ka dhigeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kormeeray furista qaar ka mid ah jidadkii u xirnaa ciidankan taasi oo hirgelinteeda xukuumadda waqti badan ay ku baaqaysay Roble ayaa sheegay in galabta uu si rasmi ah u bilowday qorshaha ciidamada looga saarayo xaafadaha dhufeysyadii yaalayna looga qaadayo gaar ahaan aaga Mirinayo Siigaale ilaa iyo xaafadda Barmuda isagoo intaasi ku daray inuu gamaad celinayo mucaaradka inay u diyaarsan yihiin fulinta heshiiskii la wada galay qaadista ciidankan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb ah qaar ka mid ah xildhibaanada madasha badbaado qaran xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah guddiga taakuleynta ciidamada badbaado qaran ayaa yiri waxaan galabta si wadajir ah uga qaadnay isgoysyada dabka ilaa iyo Mirinayo difaacyadii ciidamada goobahaas waxaan ku wareejinay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble qaadista ciidankan ayaa ku timid heshiis shalay lagu gaaray Muqdisho oo 10 qodob ka koobnaa waxaana ka mid ah in heshiiskaas aan wax daalacad loo raacan karin saraakiisha iyo waliba ciidamada kale ee halkaasi ku sugan iyadoo sidoo kale loogu baaqay guud ahaanba saraakiisha kale ee dawladda sida gaar ahaaneed ay u tuhmayso in mushaaraadkooda iyo darajooyinkooda aan waxba loo dhimi karin waxaan ugu horeeyaa Saadiq John dhinaca kale war degdeg ah ayaa waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha uu aad uga mahad celiyay dhammaanba dhinacyada kala shaqeeyay sidii ciidamadan looga saari lahaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kuwa harsanna sidoo kale loo saari lahaa dhinaca kalena xaaladda waxay u muuqanaysaa in ra'iisul wasaaraha uu ka gudbay caqabadii ugu horeysay ee ku gadaamaneed in dalka uu ka qabto doorasho wadar ogal ah markaad eegtid Maxamed Xuseen Roble wuxuu kalsooni badan ka qabaa musharaxiinta madaxweynaha oo intooda badan ay isku heeb yihiin kuwa oo ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan haddii doorashadii amniga gacanta loo geliyay waxaan eegi doonaa Kenya oo xiriirkeedii dib ay u soo celisay dowladda federaalka Soomaaliya asaate haddii aan ku horeyno mid ka mid ah wararka ugu waaweyn dunida waxaa xabsiga loo taxaabay wasiirkii maaliyadda ee dalka Qatar xeer ilaaliyaha guud ee Qatar ayaa amray in la xiro wasiirka maaliyadda dalkaas Ali Sharif Al-Imadi taas oo qayb ka ah qorshe baaritaan loogu sameynayo lacagta dawladda oo si qaldan loo isticmaalay iyo ku xadgudub dawladeed ayaa la sheegay sida warbaahinta ay soo warinayaan wakaaladda wararka Qatar ee magaceeda loo soo gaabiyo Qina ayaa maanta warisay in go'aankan la gaaray kadib markii dib u eegis lagu sameeyay dukumiintiyo iyo warbixino ku saabsan dambiyo la xiriira lacagta baaritaan ballaaran ayaa hadda socda ayaa lagu yiri warkan lagu qoray wakaaladda xeer ilaaliyaha guud waxa uu amray in la xiro wasiirka maaliyadda Ali Sharif waxaana su'aalo laga weydiin doonaa tuhun badan oo soo galay lama oga haddii lagu helo musuqmaasuqaas iyo waxa uu mutaysan doono markana xaaladda Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay dib u soo laabatay xiriirka kala dhaxeeyay dowladda Kenya oo ay jartay dhamaadka sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2020 diblomaasiyadii ayaa waxa ay noqonaysaa mid dib u soo noqonaysa sida uu shaaciyay goordhaweyd wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala waxa uu sheegay in ixtiraamka faragelin la'aanta ay tahay mid
lagama maarmaan ay tahay oo dalal badan ka dhaxaysa. waxa uu sheegay in sidoo kale dowladda Soomaaliya ay doonayso inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya Kenya. wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in qadiyadda badda aysan ku jirin arrinta dib u soo celinta, ayna qadiyadaas meesheedii weli Soomaaliya ka taagan tahay. tani waxay ka dhigan tahay in safaaradihii labada wadan ee dib ay ugu kala laabteen dhammaadkii sanadkii aynu kasoo gudubnay safiirada ay dib ugu soo laaban doonaan shaqooyinkooda, islamarkaana ay sii gudageli doonaan inay u adeegaan shacabka labada dal. Kenya ayaa dhowr jeer oo hore waxay isku dayday in si caadi ah loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, laakiin dowladda Soomaaliya ee muddaxileedkeeda uu dhammaaday ayaa iminka waxay isku dayeysay in ay taaka u dhigto dowladda Kenya, taasi oo ugu dambeyn soo gabagabaysay in lagu guuleysto in labada dhinac ay isfaham gaaraan xiriirkoodana dib u soo celiyaan. dalal ka tirsan Khaliijka iyo Mareykanka ayaa la tuhunsan yahay in kaalin weyn ay ku leeyihiin gebi ahaanba in ay soo gabagabowdo kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya. xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay jartayna mar kale ay ku dhawaaqdo in dib ay u soo celisay. Mareykanka ayaa shaaciyay magacyada siyaasiyiinta diidan doorashooyinka in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku dhawaaqi doono. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in dowladdiisa ay ugu yeertay magaalada Washington si uu warbixin uga siiyo xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka. Yamamoto ayaa hadalkan ka sheegay kulankii shalay ee beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, wuxuuna sheegay in si qoto dheer uga warami doono xaaladda cakiran ee ismariwaaga ah ee weli ka taagan hanaanka doorasho jihada loo wajahayo ee gudaha dalka Soomaaliya. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dowladdiisa uu u bandhigi doono magacyada siyaasiyiinta Soomaalida ee diidan doorashada aadna uga cagajiidaya marka la eego. danjiraha Mareykanka ayaa sidoo kale ugu baaqay hogaamiyayaasha Soomaalida inaysan ku mashquulin siyaasadda, isla markaana ay eegaan badbaadada dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee weli ka socda gudaha dalka Soomaaliya. Mareykanka waxaa weli uu wadaa howlgallada militari ee wadajirka ah ee uu ku taageerayo ciidanka xoogga dalka SNA. talaadadii aynu kasoo gudubnay askari ayaa nooga dhintay gudaha Soomaaliya. Soomaalidu waa inay wajahdaa Al-Shabaab oo aysan ku mashquulin meelo kale, ayuu yiri safiirka. Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guur ah oo daba dheeraatay, waana xaaladii ugu adkeyd ee 30 sano ee ugu dambeeyay soo marta gudaha dalka, iyadoo madaxweyne Farmaajo dhowr jeer oo hore uu ka cagajiiday in dalka doorasho ay ka dhacdo, wadahadaladana dib loogu laabto. laakiin sabtidii aynu kasoo gudubnay golaha shacabka ee muddaxileedkoodu dhammaaday, isagoo la hadlaya ayuu hoosta ka xariiqay in uu diyaar u yahay in wadahadalada dib ugu laabto muddo kororsigii been abuurka ahaana meesha laga saaray. dalalka ku buhoobay ururka G7 ayaa hanjabaadii cusleed u soo jeediyay guud ahaanba hoggaanka Soomaalida. wadamada ku buhoobay ururka G7 ee awoodda warshadaha iyo dhaqaalaha ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya, iyagoo walaac ka muujiyay ismariwaaga doorashooyinka ka taagan. ugu horeen dowladaha G7 ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka ee dib uga noqoshada muddo kordhinta loo sameeyay madaxda waqtigoodu dhammaaday, iyagoo intaasi ku daray in xal laga gaari karo oo kaliya wadahadalada haatan dib u bilowday. waxaan soo dhaweynaynaa ansixintii baarlamaanka ee 1 Maaj ee ahayd dib u bilaabista wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in la dhameystiro hanaanka doorashada ee ku saleysan heshiiska 17 Sebteembar, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkii ay yeesheen wasiirada horumarinta iyo arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay G7. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in intooda badan intan dal ay halkan ku midaysan ay taageeri doonin doorashooyin isbarbar socda, isla markaana horseedi kara xasilooni darri. dalalka G7 ayaa ku booriyay madaxda Soomaalida in ay isxakameeyaan, iyaga oo uga digay inay qaadaan tallaabooyin keeni kara isku dhacyo iyo dib u noqosho dambe. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in aynan taageeri doonin geedi socodka barbar socodka mid aan loo dhamayn ama dadaalo cusub oo horseedaya kordhinta muddaxileedkii hore. waxaan ku boorinaynaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed in ay isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah.
kaas oo sababi kara in xiisada siyaasadeed ay kasii daraan. Waxaan muhiim u aragnaa in dhammaan dhinacyada Soomaalida ay is ilaaliyaan ayna ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, ayaa mar kale ay ku yiraahdeen war-saxaafadeedka ay soo saareen. Ugu dambeyn, dalalka ku jira G7 ee kala ah Canada, Faransiiska, Germany, Italy, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ku goodiyey inay wax ka bedeli doonaan qaabka ay ula macaamilaan Soomaaliya haddii aysan isbedel dhab ah imaan oo madaxda Soomaalida aan laga dareemin. Haddii aynu taasi dhicin, waxay horseedi doontaa in bulshada caalamka ay wax ka bedesho qaabka ay u wajahayso Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka oo lagu soo gabagabeeyay warmurtiyeedka. Tani waxay la mid noqonaysaa hanjabaado horey uga soo yeeray inta badan wadamada beesha caalamka oo salka ku haya xaaladda dhabta ah ee gudaha dalka iyo weliba ismariwaaga ka taagan dhinaca doorashada, iyadoo sidoo kale ay muuqanayso in horey loogu hanjabay hogaanka madaxweyneedkoodu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoonka golaha shacabka in cunaqabateen ay muteysan doonaan haddii aysan degdeg uga laaban guud ahaanba muddo kordhintii 12 Abriil ay sameeyeen golaha shacabka ee madaxweyneedkoodu dhamaaday ka oo Sabtidii aynu kasoo gudubnay ay ka laabteen. Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in god dheer ay ku dhacdo mar kale, inkastoo aan la ogaan karin xaalka iyo sida uu noqon doono. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xafiiskiisa Garowe ku qaabilay wafdi ka socday xafiiska qaramada midoobay ee deegaanada Puntland. Guy Gorfin nin lagu magacaabo ayaana horkacayay kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlay guud ahaan arrimaha Puntland, gaar ahaan wada shaqaynta hay'adaha qaramada midoobay iyo maamulkaasi sidii loo xoojin lahaa. kulanka oo looga hadlay arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay Cabdicasiis Maxamuud Maxamed oo arrimaha siyaasadda u qaabilsan xafiiska qaramada midoobay ee Puntland, ayaa lagu yeeray qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Sidoo kale, intii uu socday kulankan ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday sidii qaramada midoobay kaalin uga geysan lahayd caawinta dadka uu saameeyay roobkii ka da'ay qaybo ka mid ah Puntland. Si kastaba, kulankan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli 20-ka bishan loo madalsan yahay in ay ka dhacdo gudaha magaalada Muqdisho shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Puntland ayaa aqbashay inay ka qayb gasho shirkan markii ugu horeysay waxaa soo qaban qaabiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, laakiin waxaa soo baxaysa in ay muuqanayso in Puntland ay weli isku dayeyso in beesha caalamka ay ka dhaadhiciso nidaamka ay wax ku doonayso. haddii aynu eegno war kale oo xasaasi ah oo Muqdisho naga soo gaarayana, shir ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu waramayaa in si xasaasi ah looga hadlay ciidamo iska soo horjeeda oo ilaaliya xarunta gobolka Banaadir, kuwa oo saameyn ku yeeshay ammaanka guud ee xarunta. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa waxa uu shirkii toddobaadlaha ahaa la qaatay qaybaha kala duwan ee waaxyada gobolka Banaadir. shirkan ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho, maadaama lagu guda galay xilli roobaadyo islamarkaana maalmo ay naga xigaan maalinta ciidda Soonfur. sidoo kalena shirka ayaa looga hadlay sare u qaadida dakhliga dowladda hoose ee Xamar. mas-uuliyiinta degmooyinka qaarkood ayaa laga dhageystay warbixin looga hadlayay amniga iyo arrimaha bulshada degmooyinka. waxaa la isku dardaar weliyey in adkeynta amniga ay tahay lagama maarmaan, islamarkaana looga baahan yahay dhammaan dadka ka shaqeeya gobolka Banaadir in ammaanka qof walba dhankiisa uu ka qaato, islamarkaana aysan noqon in cid gaar ah lagu haleeyo. maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay qorshayaal ku saabsan ciidamo booliis iyo kuwa ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Banaadir inay isku maandhaafeen nidaamka loo sugayo ammaanka, iyadoo ciidamada gudoomiyaha gobolka Banaadir ay awood adeegsadaan islamarkaana ay kasoo horjeestaan hanaanka sugidda amniga gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska. tani markii la qaarajiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Injineer Yariso, waxaa aad u soo bixaysay hadalhaynta ku saabsan in Cumar Finish uusan marnaba isku aaminin ammaanka guud ee gobolka.